war-saxaafadeed ka soo baxay maanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo bandhigay magacyada iyo aqoonsiyada qaar ka tirsan askartii ciidamada Burundi ee ka socday midowga Afrika AMISOM looga dilay degmada Daynile ee magaalada Muqdisho. xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeedkooda ku sheegay in iyagoo ka jawaabaya codsi uga yimi qaar kamida qoysaska ay ka soo jeedaan askarta Burundi ay soo bandhigeen aqoonsiyada iyo magacyada qaar kamida askartii Burundi looga dilay dagaal culus oo ka dhacay degmada Daynile ee magaalada Muqdisho. war-saxaafadeedka iyadoo sidoo kalena lagu soo bandhigay qoraalka nooca dhiiga askariga xilliga uu dhashay iyo halka uu ku dhashay. dagaalka lagu dilay askartan ayaa ka dhacay degmada Daynile bishii Oktoobar ee sanadkan iyadoo xarakada al-shabaab ay sheegtay in ay kaga dileen dagaalkaas ciidamada Burundi in ka badan 76 askari oo ay ku soo bandhigeen deegaanka calamada ee duleedka magaalada Muqdisho. balse dawladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya iyo taliska ciidamada AMISOM ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalkaasi lagu dilay 10 askari oo Burundi ah iyadoona la yahay 2 askari oo ka tirsan ciidamadaasi. dhanka kale xarakada al-shabaab waxay war-saxaafadeedkooda ku sheegeen inay u furayaan albaabada wada hadalka qoysaska Burundi ee wiilashooda lagu dilay Soomaaliya gaar ahaan kuwa doonaya in loo xaqiijiyo meydadka wiilashooda. ma aha markii ugu horeysay ee ay saxaafadda u soo bandhigaan xarakada al-shabaab mujaahidiin dukumiintiyo ay ku muujinayaan askar ay ku dileen dagaalo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. عبد الكامل يوسف محمود، Somalisat TV، مقدشو.